ciidamadan booliiska dalka Norway ee soo booqday xarunta Universal TV ee magaalada London ayaa ka dambeysay ka gadaal markii ay xiriir la soo sameeyeen maamulka TV-ga si ay uga qayb qaataan hawlaha wacyigelinta ee jaaliyada Soomaalida dalkooda ku nool waxaana ay sheegeen in booliiska Norway ay diyaar u yihiin Soomaalida dambiyada ka gala Norway sidii looga hortagi lahaa isla markaana loo wacyigelin lahaa iyagoo doonaya inay isticmaalaan TV-ga Universal waxaanu jecelnahay wax ka weydiino Soomaalida ku nool dalka Norway dhaqankoodu sidoo yahay waxyaalaha ay ka cabanayaan iyo dhibaatooyinka booliisku mararka qaarkood ay kala kulmi karaan daayirta Soomaalida dalka ku nool iyo sidii loola shaqeyn lahaa booliiskaas oo caruurteenu ay uga badbaadi lahaayeen in la xarigay xabsi lagu guro oo maxay tahay criminal record markaas ay yeeshaan hadii booliiska aan loo wada shaqeynana waxay keeni kartaa in caruurteenu xabsiyada ay ka badbaadaan waraysi gaar ah ay bixiyeen ayaa Cabdul Xafiid su'aasha ugu horeysa weydiiyay How does the Somali youth in Norway, what relationship does the police have? Well, I don't think the Somali youth has a really big or a lot of communication with the police. I don't think we do as much as we could or should. Right. I mean, why is it that they don't have a relationship with the police? Does the police in Norway, like yourselves here, do you go out and do community outreach where you can talk to them and ask them what is their concern so you can bridge the gap? In the community where I work, we are Norway is a small country. We don't have the population of ethnic groups as big as you have here in England. In Norway we are about 5 million people in the whole country. So you think that the groups are smaller. But we do have Somali groups and we do have other ethnic groups. Ta vare på ungdommen, bry dere om barna deres, ta del i foreldresamarbeidet, gå nattravn hvis det er muligheter for det. Benytt dere av mulighetene og mulighetene til å ha oversetter til stede i foreldresamtaler. Okay. Sida dalkiisan daawadayaal booliiska Norway waxa ay doonayaan in la shaqeeyaan dadweynaha Soomaaliyeed ee ku nool halkaas si looga hortago dambiyada qorsheysan mana aha qof kasta Soomaali inuu dambi galo laakiin qof iyo laba dambi gale ayaa ku filan magaceena iyo sumcadda dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan inay dhibaato u soo jiidaan waxaana hadalladooda laga dareemayaa inay leeyihiin inaanu ka hortagno ayaanu doonaynaa inta aan dambiyaduba aysan dhicin dadka Soomaaliyeed ay caawiyaan ugu dambeynna waxaa maamulka TV-ga la guddoonsiiyay abaalmarin ay ugu talagaleen TV-ga Universal kaalinta uu kaga qayb qaato wacyigelinta qurba joogta Soomaalida ee dalalka kale u soo hayaamay Ibrahim Umar Baafe wararka Universal London